عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتو عنا وناكسن سودواو كنا سودوا حمدها مدكر يقول كيدي هرددا حكورتينا يا إن عادي هذا عافمات قبطان الحمد لله عادي هذا عافمات قبا رمضان كنا ورمضان هذا وناكسن هذا قروح بدن روب يتوي هذا معنا ينكشرنا وما نتش معاه حكورتينا يا يتوي قروح بدن وحنكون دعينا يا بركة جمعة بشهر رمضان يروب كان دعايو وعلامة خيرات إنه إلهي قف كستمشي وكباهن يحي أسوون قف بلي آدم وباهنانين وإلهي جونا واحد كهاي وكباهي ترى عيا وجود عينا يا قف كسته أو صوماليات أنا ونسي جماعة أنا نيكل ريبين هذا ما أنت أو إبل رمضان تهاي وبال عبادة هاي وحاني سهر فريستو الربعين كهذلو قصير وادياد إيتابتي وأربو ina in la wadaago muuqaalka ku xigan waxa uu hadli doonaa dhalashadii warsame iyo sidoo familiga ugu soo biiray soo marka waxaan rabaa inaan ka hadlo gabadha yar halkaan soo saari doono fiiriya sawirkeeda oo garanaysan Soomaha naxwo waxaan u maleynayaa inaan habreer uga aadano habreer هو gabar aad iyo aad u yar wax badan iga yar ma sha Allah tabaaraka raxmaan aad ayaa ula qeyrooday muuqaalka naxwo adigu ma aragtay ma ila daawatay muuqaalka naxwo ku soo gaaray ma ka warqabtaa qisada naxwo anigu aad ayaa uga qeyrooday aad ayaa uga niyad jabay xanuun badan waa la dareemay gabadha ee naxwo gurigeeda tagtay ee gurigeeda joogtay ee naxwo yar soo dhigtay أنا وحنا أكثر ما يسمعيني لكن بين إني مشي جاي ضدكينو أنت بدن أيوة إسكادي جاي نكون عينيان أيوة كوجود جنايان أو يكون حمايان أنا والربين إن أوقف بالعادة أنا كنت هقصده هذا ناس داني أقلي إجرات كي كانوا أركو أي أربعة أنا واحد نحو حنا جبها أنت جربيستاك وحنا جبها أنت عوامات وجبر الصومالية ظروفت وين الصوالة مرتها كليا لكن سؤال سويدينها واحد هاي waan rabay in aad u ogaado waan marar badan isweydiiyay chingad hada waa chingad koormay ceeb noqotay wax qof lagu caayo oo laga faano chingad ayaan ku dhashay chingad ayaan noloshayda inta ugu quruxda badneed ku soo qaatay happy aan ku ahay dib loo marko marka aan sheekeeyo اللي يرهدون نرش هذا بوك قر حلا وقرح ذا بدن إنه لشيء ده أنك قري لها مانتا ووقت تجي أنكو سوقاتي عرض الجدودن يتشين قدا وقت تجي صرت في لدا معنى يقوم مفدين ونسوي نادي سكولان دقناي واوتي لكن وقت تجي تشين قدا ووقت تجي هذا قرح بدنا كلسوني أنكو منان قفرتو ذو غشي يعني يقول ترتاح ceebna uma arko marka goormee ceeb noqotay jingadi wase waqtigeennii anagu aan soo kornay iska daa media ma jirin iyo qof caaya marka waxaan la yaabaa dadka gabadha yar jingada ku caynaya ee ku kalifay heer ayadii odageedu inay inta guri islaameed tagaan ee ka dhigaan inay ayagu leeyihiin heerkaas sababta loo gaarsiiyay fahmi waayay kaalaya goormay jingada ceeb noqotay sotan kulligan jingadaha ku wada dhalanay sota gabalkeen buush ku dhashay soo gabalkeen aqal Soomaali ku dhashay waxa ma siyaado meelad ku dhalatay meelad ku jiifatid laakiin waxa wax siyaadiya qofka shakhsiyadiisa fikradiisa dheer iyo tarbiyadiisa si kastoo dabaq iyo villa ugu dhalatay si kastoo isbitaal ugu dhalatay si kastood nolol qurux badan ugu soo kortay haddii aad tahay qof aan tarbiya lahayn ummaddu aysan ka nabadgelin ogaaw xaarka musqusha la geeyo adaa ka qiimo xun marka jingada biliis ha iga caayin ummaddan ha ku aflagaadeynina naxwo yar heer waxaa la gaarsiiyey ay guri islaameed tagto ay ka sheegto inuu gurigeeda yahay noo soo bandhigto كل Soomaali ay ka deedimaysa xataa odageeda ayay abuurka Ilaahay abuuray oo rabbigeeni raxmaan ahay qalqay ayay ku aflagaadeeyaan
waxaan la yaabay bini aadanka siiba dadka anagu aan ka dhalanay war dad ilaahayga abuurtay ka xishoo waaye sida isagu wuxuu abuurtay ummadda ku aflagaadeynayo miya adigu deynayo maya kalsoonidu waa wax aad iyo aad u qurux badan laakiin gabadha yari way yartahay waqtiga iyo waayaha ayaanan u kala reemin waxaana sidoo kale ka faa'iideystay ayaduna oo dhulka la jartay gabadhan barorta muuqaalkan ila arka wallaahi inaan ben ii sheegayni aad iyo aad iyo aad ayaan uga xumaaday naxwo yar arrinta ku dhacday barorta muuqaalka ila arka والله نحو عنو يريسوا قبل يرواي وحول بما أنت قف ضدك قال يفهم كلام بس أنا أفهم كرو مفهم كرت صوماهن أنا أنت بغض محاقف بس كم قرن شقكم مقن قرون هذا واحد دائما هذا شيء كذا وسوق قرته سودك معاه وحبو مكلاهن مفهمتين marka idii islaahay guru qurxan soo duub markay guriga idin soo duubtana xumaani waxa ugu bedesheen guriga ma lahayn guriga ma degneen guri shaqaale ka tahay waa waray gurigeed gurigan waxa isma dhaam wax oo isdhaamo ilaahay abuurto ma lahan baanteen gurigan gurigeeda waaye biri ku samaanay ha qof walba sax waaye biri ku samaanay ilaahay ku sameeyo insha Allah waan baanteen ha gurigan adeeg هذا معاه أمس اللي بقى صهري inaad dhammaantiin aragtaan gabadhu markii la weydiiyey guriga yaa leh oo ay tiri anaa leh naxwo huq badan ayaa go'day dhulka ayay fiiriday aadna way iga xumaatay waayo raalli kama aysan ahayn sida wuxuu dhacayaan abaayoy macaan dadkeenna horta ben iniima sheegayee ayagoonan gabalkood waxaleeya islahaynay wax badan qarribaan gabalna ayagoo raba inay ku caawiyaan iska dhigaya dhulkula jaraan gabadhan yartaa xataa haddaad sheegaysid inuu gurigeeda ahayn su-aalan qabaaya qasab miya inaad soo fariisatid camera lef ma waxay rabtay gabadhu inay iskayn barto inay idu guriga lahayd ma fahmin laakiin anigu hadda reason cad oo aad u sheegtid inay gabadhan idu guriga aysan lahayn uma jeedo hadilad naxwo daruufa hayse hala caawiyo gabdhaha Soomaaliya ida caawimad u weydii lahayd waa la caawi lahaa ama ayaad TikTok live soo fariisato ay dheelad walaalayaal hala caawiyo daruuf baa haysata kuma qasbaneen inay guriga ayadu aysan lahayn ee umada been u sheegaysay in la soo sheego ayadoo taasi dhicin ayaa gabadhan jirtay wadooyin kale badan oo lagu caawi karo hadda caay baad u kordhisay mooyaane waxba kama hada qaadeen kalsooni darro nafeed ku riday shaladada iska haysta laakiin maanta hubkii lagu dili lahaa ay umada gacanta u gelisay aad iyo aad ayaan uga xumaaday dad la waa arkay ninkeedu muxuu u raacay ninkeedu gabadha haday ayadu rabtay inuu la sameeyo dee waa odageedii asaga laftirkiisa ayaa culays badan saaran yahay wuxuu waa dumarku si kale u fakaraa laga yaabee in guriga ku dumi lahaa kolley wax qurux badan meeshas kama dhicin gabadha yartaana sida la yeelay si wanaagsan maaha anigu ka xamdi ahaan waxaan aad iyo aad u jeclaa lahaa inkastoo anigu kaligay aanan caawi karin inaan naxwo yar caawino garab istaagno mataqaanaa nolosha hooyadeed ay ku jirtay la sheegay iyo tan ayaduba ay ku jirto labadaba aan ka caawino ayaan anigu ka xamdi ahaanteyda iga codsa lahaa gabdho wixii anigu aanu awoodo ka xamdi ahaana waan ku caawinaa laakiin waxaa fiicnaa lahayd gabdhaheena miidiyaha ku jira intaana youtuberadii tiktokerada in gabadhan yartaa aan garab qabano caawino adduunkaa walaa lagu yahay qofkii awooda inuu shaqo siiyo gabdhaha dukaamada le naxwo yar shaqo siiyaan in la caawiyo naxwana waxaan leeyahay habarey macaanadu muuqaalkay kusoo gaaro anigaas kula hadlabaa jiingada aad degantaa hadda mid lamida ku dhashay kusoo koray dhibna jiingadi ma lahan maanta inaan degana wax iga qurux badani ma jiraan nololaha ii sawiran ku riyooday kamid tahay inaan mihiga dego ee aan buush yar dhistee cunto soo baxday ee natuura cuno ee halkaas aan kasoo wariyay waxyaalo badan marka ama sar seexo ama guri adigu aad leedahay seexo ama kira seexee guri waa un isku guri muhiimadu waa caafimaadka farxadda iyo deganaanshaha adigu aad haysatid
tani way kugu dhacday 10 ayayna kuu noqonee wayna kaa hoostay laakiin maalin dambe ayay iskugu dheheen dhar aan dharkaaga ahayn dhaxankaa ma celiyo tira Soomaaliya aad iyo aad aan ugu xumahay wejigaada ayaana ka arkayay inaad raalli ka ahayn qaabka wax u dhacayaan gabadha ku soo bandhigtay inuu qof dumara inay wax wanaagsan u maleysaa laakiin wax badan ay halayday aad aan ugu xumahay ka xamdi ahaanteeda waxaan ku awoodon kugu caawinayaa inaan maanta wax ku siiyana waxa kaaga muhiimsan inaan kula taliyo oo fikrado muhiim ku siiyo fikrada koobaad ku siinaa waxay tahay jinga deganaw ama jiga deganaw ama filla deganaw naxwo filladu waa guri taagan oo roobka iyo dhaxmaha laga gala mooyaane qofka bini'aadamka garaado iyo aqoon uma siyaadiyaan qofka shakhsiyadiisa iyo fikradiisa iyo horumarkiisa waxyaalaha dhisaa waxay tahay kalsoonida waa inaad kalsoonidaada dhisataa adiga ayaa usoo bareeray inaad ummadda Soomaaliya hor timaadid marka maalintaad ummadda Soomaaliya hor imaatid ee aad miidiya yeelatid ayaa waxaa lagaa rabaa in kalsoonidaada sii laba jibaarmato sida dhagta Allah kugu abuuray odagaa suugiya waa abuur Alle nolosha aad ku qanaacs degan ku nooshaana waa nolol Soomaaliya 98% ay ku soo wada noolaadeen yaana waxba ceeb laaga dhigin sidii Soomaalidu waxa wanaagsan ay ceeb kaaga dhigaa markay waxay kugu caayaan waayo marka tan kugu dhacday aad baan ugu xumahay waanan kula dareemay waana kula danqay heerkaas in kalsoonidaada la gaarsiiyo sida lagu caayayeen aad baan ugu xumahay dumar adiga ku dhali karna ilaa 24 saac komiteel qaldan ku soo qoraanay ku caayaan waxaan u arkaa dad maskaxdu maran tahay hal maasiido qaldan hadan gabar u qoro maalintaas waa inaan ka walwalo ilaa ay maanta noloshiida ayaan hoos u dhigay dib u dhac ayaan sameeyay war maskaxdiina negatifyada ka dhaqa oo ummadda aad ku mashquulsan tahay iska dhaafa maxay ku soo siyaadinaysaa inaad qof committee qaldan u qortid su'aalan ku weydiiyay maxay iga jaraysaa inaan committee qaldan isu qortid maxay iga dhibaysaa waxay ma dhibayso qofka awoodda leh karti ayuu ka sii qaadaa because marka uu qof aanan dunida inuu ku nool yahay xataa aadan ogeyn oo inuu ilaahay abuuro xataa aadan ka warqabinin oo maasid ku soo qoro jugdi ku soo galiyo why not waa garaado iyo xidiga la gaaro qof kasta nama helo soo qofka kartida leh taas kalsooni ayuu ka sii qaadaa qofka dhalinyarada ay daruufta iyo danta ku jira laakiin waxa laga yaabaa sida gabadhan oo kale inay maanta hoggay ku dhacdo ku rido marka adiga committee qoraayo waxaad u baahan tahay isbedel nololeed qofka committee-gaada ka danqaynaya wuxuu u baahan yahay isbedel nololeed dhammaanteena waxaan u baahanahay isbedel nololeed aan is dhiirigelino iscaawino ummaduna ha kaa ammaan hesho haddaadan waxba u qabanin cudurrada isbitaalada loogu talagalay ee aad miidiyaha la joogtaan bagays dhaqaatiir la raadsada inta aanan ummadda gubin adinku aanan isdilin waalanina xanuuno badan oo dhaqaatiirta u baahan ayaa la nooshihiin markaasaad moobilka wehel ka dhigataan iyo kombiyuutarada in hore yaala waqtigiina aad ku dhamaysaan halkan ayaa muuqaalkay kusoo gabagabeeyey waxaan dihimid kale. Assalaamu calaykum.